waa kuwa YouTubers-ku baabujey kaga dayanaya falkii naxdinta lahaa uu sameeyay wax fiican ma aysan ahayn waana caro ilaah badankii Soomaalidana waa ay ka soo horjeesteen haddaba intaan muuqaalkan u gudagelin fadlan like saar muuqaalka siina share garay buuxina shuruudaha aan ku saaxiibi karno waqtiyadii dambe waxaa dunida ku soo badanayay isticmaalka baraha bulshada gaar ahaan dhalinyarada lacagta iyo daawashada ka raadinaysa tirada dadka ku xiran ama daawada barahooda bulshada dhalinyaradan ayaa waxaa qaarkood ay sameeyaan muuqaallo iyo faralo argagax leh oo ay ku doonayaan inay ku soo jiitaan asxaabta ku xiran muuqaalada yaabka badan waxaa ka mid ah in qofka uu qabri isku soo xiro isagoo nool oo halkaasi ku jiro muddo saacada ah falalkan ayaa waxaa horey u sameeyay dhalinyaro YouTubers oo ka soo jeeda qaaradaha Amerika iyo Yurub hase yeeshee waxaa maalmahan aad loo hadalhayaa baraha bulshada Soomaalida aad u qabsaday falkii uu sameeyay baabujey oo ka mid ah YouTubada uga caasan Soomaalida waxaan halkan ku eegi doonaa qaar ka mid ah YouTuberska iyagoo nool qabriga isku aasay si ay u soo jiitaan dadka ku xiran barahooda bulshada waana sheeko markaa cajiib ah aan ku bilaabo Jimmy Donaldson oo loo garan ogyahay MrBeast waa YouTuber caan ka ah dunida waxaana uu sameeyay arrin cajaa'ib leh qaar ka mid ah fiidiyoodiisa uu ka sameeyay arrinka qabriga ku aadan waxaa daawatay 30 milyan kuwa kalena 100 milyan ayay gaareenba MrBeast wuxuu isku dhex aasay sanduuqa la geliyo godka qabriga muddo 50 saacadood ah waxaana uu muuqaalkii ka duubay daawatay 57 milyan waxa uu in ka badan 2 maalmood ku jiray qabriga MrBeast 50 saacadood ayuu isagoo nool ku qaatay sanduuqa kadib markii nolosha lagu aasay kamera ayaa la geliyay gudaha naxashka waxaan 12 daqiiqo ugu horeeyay ee duubtay muuqaalkii isagoo qabriga ku jira la soo dhigay YouTube-ka MrBeast ayaa saxaabtiisa u sheegay in ay u noqonayso tani khibrad wuxuuna qirtay in uu kaadada isku celinayay sidoo kale waxa uu si joogto ah ula xiriirayay asxaabtiisa goobta markaa joogta waayo aragnimadu ma ay ahayn mid sahlan maadaama uu bilaabay inuu dareemo xanuun iyo cabsi maalin kadib dhabarka ayaa i xanuunayay waxaan bilaabay inaan dareemo cabsi xooggan caajis iyo madax xanuun sidoo kale ur ayaan dareemayay muuqaalka MrBeast ayaa sidaasi markaa laga maqlayay laakiin ugu dambeyn 22 jirkaasi waxa uu dhaafay ama uu sameeyay challenge-gii ugu talagalay in uu arrinkaasi ku soo gabagabeeyo oo 50 saacadood ayuu qabriga ku jiray balse nasiib wanaag ma uusan geeriyoon haddaba haddii aad nala soo gaartay ilaa iyo gabagabada muuqaalka fadlan like saar siina share garay buuxina shuruudaha aan ku saaxiibi karno